madaxweynaha horeeta Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ku hortagay qorshe ka dhan ah ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. madaxweynaha horeeta Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu ku hortagay qorshe ka dhan ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxweynaha horeeta Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa uu ka dalbaday inuu kala shaqeeyo dawladda uu hogaamiyo sidii waxa looga bedeli lahaa xaaladda iminka jirta ee siyaasadeed iyo sidoo kale in la baajiyo ama xal loo helo mowjado siyaasadeed oo ku wajahan dawladda uu hogaaminayo. madaxweyne Farmaajo ayaa madaxweynaha horeeta Soomaaliya Sheekh Shariif ka dalbaday inuu baajiyo mooshin xilka looga qaadayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo si qarsoodi ah u saxiixeen in ka badan 110 xildhibaan oo mucaarada. Farmaajo ayaa Shariifka u sheegay dawladda Soomaaliya ay sameyn doonto isbedel dhanka siyaasadda iyo ammaanka maadaama waqtigii uu hayo isla markaasna ay wajahayso dhibaatooyin dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid dibadda uga imaanaysa. waxaana Shariifku uu sheegay inuu is-hortaag ku sameeyo mooshinka Khayre iyadoo dhanka xildhibaanada mucaaradka ah ay soo abaabuleen. madaxweynaha horeeta ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa madaxweyne Farmaajo u sheegay inuu isku dayi doono inuu baajiyo mowjada siyaasadeed ee ku wajahan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo mooshinka la saxiixay. asagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu kulamo gooni la qaatay xildhibaanada mooshinka ka waday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Shariifka ayaa markaasi kadib waxa uu la kulmay xildhibaano gaar ah oo gaaraya 60 xildhibaan kuwaas oo hormood u ah mooshinka laga keenay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxayna isku afkarteen in la baajiyo mooshinka maadaama uu Shariifku ku codsaday xildhibaanada in la joogo waqtigii dawladnimada Soomaaliya laga shaqeyn lahaa isla markaasna ay dhowdahay xilli dhamaadkii doorashooyinka loo diyaar garoobayay. dadka mooshinka keenay waxa qayb ka ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo qayb ka ah xisbiga Imilo Qaran ee Sheekh Shariif uu hogaamiyo. xildhibaanada uu la kulmay Sheekh Shariif ayaa waxa uu sheegay in waqtigu uu gabagabo marayo shaqooyin badan looga baahan yahay ra'iisul wasaaraha balse waxa uu sheegay in mooshin hadda xilka looga qaado ra'iisul wasaare kale la keeno ay shaqooyin badan hor yaalaan suurtagal ah in shaqooyinkaasi loo guto sidii loogu talagalay. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee la kulmay Sheekh Shariif ayaa qaatay tallaabada uu soo jeediyay madaxweynaha horeeta ee Soomaaliya ee lagu baajinayo mooshinka isla markaasna uu sheegay in xildhibaanada looga baahan yahay inay tallaabo qaadaan si aysan u bedelin ra'iisul wasaaraha maadaama shaqooyinka hadda hor yaala uusan ku guuleysan karin ra'iisul wasaare cusub oo shaqadaasi iminka kadib loo magacaabo. arrintan ayaa u muuqata inay dhamayso mooshinkii iyo damic xilka looga qaadi lahaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxayna dawladdu fursado u haysataa sidii ay u sii wadi lahayd shaqooyinka hor yaala. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa hor yaala shaqooyin badan taas oo laga doonayo inay dalka gaarsiiso inta la gaarin doorashada ugu soo aadan. ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa aqbalay amar uga yimid xarakada Al-Shabaab. ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa waxa ay u hoggaansameen amar ka soo baxay Al-Shabaab kaasoo lagu sheegay in kaamirooyinka qarsoon ee CCTV laga furo goobaha ganacsiga. Al-Shabaab ayaa ganacsatada u sheegay in kaamirooyinka CCTV ee ku sii jeeda wadooyinka caasimadda aan la aqbali karin gaar ahaan wadada Maka al-Mukarrama ee muhiimka ah ee qaraxyadu ka dhacaan. waxayna sheegeen in loo baahan yahay in gabi ahaanba halkaasi laga furo. ganacsatada ayaa loo ogolaaday oo kaliya inay gudaha xarumahooda ganacsiga ay ku dhajiyaan kaamirooyinka si ay u ogaadaan cidda soo gashay iyo tuugada balse waxaa la sheegay in kaamirooyinka wadooyinka laga fujiyo kuwa ku sii jeeda taasoo Al-Shabaab ay ku amreen ganacsatada. baaritaan uu sameeyay telefishinka Universal ayaa lagu xaqiijiyay in xarumaha bangiyada hoteelada carwooyinka iyo ganacsiyada waaweyn ay aqbaleen amarka kooxda Al-Shabaab ayaa amarkani soo saartay waxayna ku micneeyeen inay laga hortagayso in kaamirooyinka CCTV ee ku dhagan xarumaha ganacsiga ee ku sii jeeda wadooyinka inay dubaan falalka qorsheysan ee Al-Shabaab ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho kuwaas oo muuqaalo iyo sidoo kale taagabyo kale oo sahlaya in la dabagalo dadkii falkaasi ka dambeeyay ay duubayaan. kaamirooyinka la amray in laga fujiyo wadooyinka ayaa la sheegay in iminka intooda badan laga fujiyay iyadoo ganacsiyada bisna gudahooda lagu xiray isla markaasna loo diiday in wadooyinka lagu sii jeediyo. tilaabadan Al-Shabaab ayaa waxay u saalaysaa weeraro cusub oo ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho iyadoo aan ka cabsi qabin wax dabagal lagu sameeyo. hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya wali lama sameeyaan kaamirooyin u gaar ah oo ay kala socdaan xaaladda ammaanka. Muqdisho mudooyinkii dambe kaamirooyinka qarsoon ayaa sahlayay
falan amni darro ka dhacaya magaalada muqdisho balse tilaabadan iminka ganacsatadu ay hogaansantay ayaa noqon doona kuwo muujinaya sida al-shabaab ay doonayaan inay weerarada iyo falalka ay ka geystaan gudaha magaalada muqdisho ay noqdaan kuwo aan wax dabagala lagu sameyn. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa tilaabada xigtay ay u qaadi doonto dhanka ammaanka iyo sida ula socon lahayd dhaqdhaqaaqyada ammaanka iyo cidda falalka amni darro doonaysa inay ka geysata magaalada muqdisho. Somaliland ayaa xirta mas'uul ka tirsanaa maamulka Puntland. ciidamada ammaanka Somaliland ayaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ku xiray mas'uul hore uga tirsanaa maamulka Puntland isla markaasna noqday gudoomiyihii gobolka Sool ee Puntland. Abuukar Cabdi Geelle ayaa xilliga madaxweyne gaas noqday gudoomiyaha gobolka Sool ee maamulka Puntland waxaana hadda kamid ah mas'uuliyiinta la shaqeeya maamulka Puntland. mas'uuliyiinta gobolka Sool ee Somaliland ayaa ku eedeeyay Abuukar inuu magaalada Laascaanood ka waday olole ka dhan ah Somaliland oo ku taageerayo xukuumadda federaalka Soomaaliya. maamulka gobolka Sool ee Somaliland ayaa waxay sheegeen dhawaan maxkamad la soo taagi doono Abuukar isla markaasna ay ku soo bandhigi doonaan cadeymo loo hayo inuu qalqal gelinayo amniga magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Abuukar ayaa xilligii gudoomiyaha ka ahaa maamulka gobolka Sool ee Puntland iska casilay bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 kadib markii uu ka soo laabtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. muddooyinkii dambe ciidamada Somaliland ayaa gacan bira ku qabanayay mas'uuliyiinta hore uga mid ahaa maamulka Puntland isla markaasna iminka lagu eedeynayo inay gacan saar la leeyihiin maamulka Puntland. Somaliland waxay sheegtay in tilaabo ka qaadi doonto cid walba oo ka soo horjeeda midnimada iyo dowladnimada Somaliland isla markaasna qalqal gelinaysa ammaanka deegaanada Somaliland. tilaabadan lagu xiray mas'uulka xilka ka soo qabtay maamulka Puntland iminka gacan saar kala lahaa Puntland ayaa ku soo aadaysa iyadoo ciidamada Somaliland ee gobolka Sool heegan sare la galiyay isla markaasna ay xaqiijinayaan ammaanka gobolka Sool. maamulka Puntland wali waxa wararka soo saaray mas'uulkan lagu xiray gobolka Sool ee Somaliland isla markaasna ma jirto wax war oo maamulka Puntland uu ku muujiyay mowqifkiisa arrintaasi kaga aadan. wararka oo Alif ayaa war ka soo saaray xiisada u dhaxeeya Canfarta iyo Soomaalida oo ay dad ku dhinteen. ururka Alif ayaa ku baaqay in Soomaalida iyo sidoo kale Canfarta ay ka wada hadlaan qaboojinta xiisad colaadeed oo la sheegay in ka jirto deegaanada xuduudka ee labada maamul. war-saxaafadeed ka soo baxay ururka Alif ayaa lagu sheegay in cambaaranayaan dilal ka dhacay dhawaan isla markaasna loo geystay 13 Soomaali ah. ururka Alif war-saxaafadeedka ka soo baxay ayaa lagu sheegay xudunta colaadu ay tahay 3 degmo oo ay leeyihiin Soomaalidu oo intooda badan la sheego in dadka Canfarta dadka shacabka ay ku dilaan. deegaanada 3 ayaa hore loogu daray deegaanada Canfarta ay maamusho ayadoona arrintaasi ay dhacday sanadkii 2014 xilligaasi oo Itoobiya uu ka talinayay maamulkii horeete. dhinaca kale maamulka Soomaalida ayaa ku eedeeyay dablay hubaysan oo Canfar inay dileen 11 Soomaali ah. dilkaasi kadibna waxaa la sheegay in dhalinyaro Soomaali ay xirteen qadka tareenka ee isku xira Djibouti iyo Itoobiya. dadaal ay ku doonayeen ciidamada Itoobiya inay qadkaasi ku furaan ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inuu ku dhintay hal qof. sidoo kale la wareediyo ayaa waxay warbaahinta u xaqiijiyeen in Soomaalida deegaankaasi maleeshiyad Canfar ay dhaawaceen ilaa iyo 17 xoolo dhaqata. maamulka Canfarta ayaa beeniyay eedeymaha uga yimid maamulka Soomaalida. sarkaal u qaabilsan dhinaca isgaarsiinta maamulka Canfarta ayaa waxa uu sheegay in booliska Canfartu aysan joogin deegaankaasi. maamulka Canfarta iyo Soomaalida ayaa la sheegay in labaduba iminka ay isku haystaan ilaa iyo 3 degmo oo u dhaxeeya xuduudka labada dhinac. Canfarta mas'uuliyiinteedu waxa ay sheegeen in xalka gaarista 3 degmo inay gacanta ugu jirto guddiga heer federaal. tan iyo markii 3daasi deegaan lagu daray dhulka ay maamusho Canfarta ayaa waxa soo kordhaya dhibaatooyinka loo geysanayo dadka shacabka. maalinkii shalay ee golaha wasiirada maamulka Soomaali galbeed ayaa amar ku bixiyay in 3daas degmo dib loogu soo celiyo deegaanada uu maamulka Soomaalidu ka aramiyo isla markaasna ciidamada new booliska ayaa la dalbay inay goobahaasi sida ugu dhaqsiyaha badan ay u gaaraan. boqolaal ka tirsan ciidamada new booliska ayaa intaas kadib la sheegay inay u jihaysteen dhanka deegaanadaasi ayagoo doonaya inay dib ugu soo celiyaan gacanta maamulka 3 deegaan ee hore loogu daray Canfarta.
xiisada arrintaasi ka dhalatay ayaa weli taagan waxaana suurtagal in gacan ka hadal uu dhexmaro maamulka Soomaalida iyo Canfarta iyadoo ilaa iyo haatan aysan muuqan wax dadaal oo arrintaasi looga hortagayo oo socda maamulka Soomaalida ayaa sheegay in xadgudubyada ka dhantaa Soomaalida deegaanadaasi degan ay keentay inay ka baxaan heshiiskii horeeto oo mid sharci darro isla markaasna ay dib ula soo laabteen saddexda deegaan ay Soomaalidu degan tahay ee Canfarta lagu daray ciidamada new booliska oo aad u qalabaysan ayaa la soo sheegay inay gaareen deegaano u dhow deegaanada la isku haysto waxaana suurtagal ah in isku dhacaan labada ciidan ee Canfarta iyo Soomaalida militariga Soomaaliya ayaa howlgalo lagu sifaynayo wadooyinka xiran waxa ay ka wadaan inta u dhaxaysa Jowhar iyo Muqdisho war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada militariga Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay howlgalo lagu sifaynayo wadooyinka dhexmara magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho ay wadaan taliska militariga Soomaaliya war ka soo baxay ayaa lagu sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay wadaan dadaalo lagu xaqiijinayo ammaanka wadooyinka isku xiran Muqdisho iyo Jowhar isla markaasna ay doonayaan in deegaanada halkaasi ka tirsan ee Al-Shabaab mararka qaar ay jidgooyooyinka dhigtaan inay ka sifeeyaan militariga waxa la sheegay in howlgalo xoogan ay halkaasi ka sameynayaan si ay uga hortagaan weerarada gaadmada iyo jidgooyooyinka Al-Shabaab ay dhigtaan wadooyinka isku xiran Jowhar iyo Muqdisho iyo Jowhar dhowr jeer waxaa ka dhacay falal amni darro oo lagu beegsaday mas'uuliyiin iyo ciidamada dawladda kuwaas oo xarakada Al-Shabaab ay mas'uuliyadeeda sheegteen muhaajiriin Soomaali ay ku jiraan ayaa lagu qabtay wadanka Turkiga hay'adaha ammaanka dalka Turkiga ayaa waxay sheegayaan howlgalo ay ku qabteen ugu yaraan 550 muhaajiriin oo ku sugan gobolka Etered ee waqooyi galbeed wadankaasi sida laga soo xigtay ila dhanka ammaanka waxa la sheegay in ciidamada ay soo qabteen dadkan oo xuduudka ka sii gudbaya isla markaasna doonayay inay u tilaabaan deegaano kale ciidamada amniguna ay gacanta ku hayaan wakaalada wararka dalka Turkiga Anadolu ayaa waxay sheegtay muhaajiriinta la soo xiray howlgalana laga sameeyay deegaano ka tirsan wadankaasi waxaana la sheegay in dadka la soo qabtay iskugu jiraan Soomaali iyo sidoo kale Syrian Iraq Iran iyo sidoo kale Pakistaniyiin iyo Afghanistaniyiin iyo Bangladesh dad u dhashay muhaajiriinta la xiray waxa la sheegay in la qabtay xilli ay doonayeen inay taariib ahaan ugu gudbaan dalalka Yurub dalka Turkiga ayaa muddooyinkii dambe waxa uu wada howlgalo ballaaran oo kaga hortagayaan taariimayaasha doonaya inay wadankiisa ka gudbaan iyagoo wadamada Yurub sii gudbaya ciidamada amniga wadanka Turkiga ayaa la tacaalaya muhaajiriin badan oo doonaya inay wadankooda ka gudbaan isla markaasna ay u gudbaan wadamo kale oo ku yaala Yurub si ay magangalyo u helaan